الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يوم القيامة addoomuhu ilaahay subxaana wa tacaala markay hortagaan, markay shaahidaan ay indhaha ka qaadaan xaaladaha daran iyo arrimaha adag ee ilaahay subxaana wa tacaala maalinkaasi uu dhigay, waxay ugu baahi badan yihiin waa annajaatu min cadaabi illaahi subxaanahu wa tacaala, waa inay ka badbaadaan ilaahay cadaabkiisa. walihaada baa ducada rusushu waxay noqotay maalinka allahuma sallim sallim, ilaahowna badbaadi, ilaahowna badbaadi. adduunyada maanta aynu joogno, baahiyaha dadka bani aadamka iyo waxay doonayaan aada bay u badan yihiin, laakiin maalinka waxa ugu weyne ay doonayaan, waxa ugu sarreeya ay dalbanayaan, waxa ugu qiimaha badan ay hiigsanayaan waa inay ka badbaadaan ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa. badbaadadu maxay ku xidhantahay maalinkaas? najaatu lcabdi yowma alqiyaama bian yaatiya biqalbin saliimin ila allah. addoonku maalinkaa inuu badbaadaa waxay ku xidhan tahay qalbiga ilaahay subxaana wa tacaala uu la hortago, inuu ilaahay la hortago qalbi badqaba, qalbi wanaagsan oo hagaagsan, taasoo quray badbaadadiisu ku xidhan tahay. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim, isagoo inooga waramaya nabiy llaahi ibraahim, walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahay ow hay hoojinin maalinka addoomaha lasoo saari doono, garoommada qiyaamo lasoo tubi doono, maalinka aanu qofna anfacahayn maal iyo inamo. adduunyada wixii yaalay oo dhan wax halkaa lala tegaya ayaan jirinba, haddii lala tegi lahaana nafci ma yeesheen. walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum wara'a duhuurikum. wax allaaliya wixii addoomaha la siiyey ee adduunyo nooceeda kala duwan lahaa halkan ayay kaga tegayaan. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala lala hortegayaa waa alquluub, wamaa xawatu min alacmaal, wamaa tafaraca canha min qowli aw camali liljawaarix. waa qalbiyada iyo waxay camal koobsadeen iyo wixii ka farcamay ee qofku carabkiisa uu kaga qowlay ama xubnihiisuba ay ku dhaqaaqeen. yowma laa yanfacu maalu walaa banuun, waa maxay waxaa addoonka anfacaya? ilaa man ata allaha biqalbin saliim. qalbi bad qaba oo caafimaad qaba, qof ilaahay subxaana wa tacaala la hortegay mooyaane qof kale maalinkaa badbaadi maayo. qalbiga wanaagsan ee caafimaad qaba ayaa addoonka anfacaya marka ilaahay la horgeeyo. fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana, maalin aada u dheer oo ku qadaran 50,000 oo sannadood. fabihi takunu najaatu lcabdi min shadaa'idi dalika alyowm. qalbigaasuu addoonku kaga badbaadayaa maalinka xaaladihiisa adag. qalbigaasi ayaa addoonku uu ku gaadhayaa waxa ilaahay u diyaariyey addoomaha maalinka qalbi wanaagsan la taga. fabima takunu salaamatu lqalb, muxuu qofka qalbigiisu ku noqon karaa mid badqabo oo wanaagsan? takunu salaamatu qalbi biliimaani waltawxiid. qalbigu mid badqaba wuxuu ku noqon karaa iimaanka iyo keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala, oo qalbiga camira oo buuxiya. qalbigu mid badqaba wuxuu ku noqon karaa bilcilmi biاllah wa biamrihi wa nahyihi, inuu noqdo qalbi ilaahay yaqaana, weynida ilaahay yaqaan,
magacyada ilaahay yaqaan sifaadka ilaahay iyo tilmaamihiisa yaqaan afcaasha ilaahay yaqaan mid yaqaana wuxuu ilaahay amray oo u diiday iyo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala faray oo ka doonay qalbigu wuxuu ku noqon karaa qalbi badqaba oo maalinkaasi addoonka badbaadiya inuu yahay qalbi ilaahay adeeca dembi markuu ka dhacana aan joogtayn oon ku madax adeygin oo canaad aan sii wadin ee sida ugu dhaqsaha badan u soo noqda oo u toobad keena qalbigu wuxuu ku hagaagi karaa ilaahay taacadiisa iyo camalka saalixa ah qalbigu wuxuu ku hagaagi karaa maxabatullah ilaahay subxaana wa tacaala jacaylkiisu inuu buuxiyo qalbigu wuxuu ku hagaagi karaa kuwa aynu sheegnay kasoo horjeedkooda inuu ka maran yahay gaalnimo iyo shirki inuu ka maran yahay bidco iyo macsiyo la joogteeyo inuu ka maran yahay ilaahay cid aan ahayn oo la jeclaado jacaylka ilaahay mid ka weyn inuu ka maran yahay shaki xaqa laga shakiyo inuu ka maran yahay ayuha almuslimuuna cibaad allah bihada tasluxu lquluubu wa tastaqiim arrinkaasay quluubtu ku hagaagaysaa ay ku toosnaanaysaa addoonka qalbigiisu markuu noqdo qalbi wanaagsan saluxa xaaluhu kulluhu xaalkiisoo dhan baa hagaagaya dhaqanka uu ilaahay subxaana wa tacaala kula dhaqmayaa noqonaya mid fiican oo ilaahay raalli geliya wayasluxu xaaluhu maca alkhalqi xaalkiisu iyo sida uu khalqiga ula dhaqmayaana wuu hagaagayaa watasluxu xayaatuhu watastaqiimu jawaarixuh noloshiisaa hagaagaysa xubnihiisaa toosaya oo u toosaya siduu ilaahay u amray fastaqim kamaa umirta waman taaba macak wasaarat xayaatuhu xayaata istijaabatin lilahi walirasuulih noloshiisaa waxay noqonaysaa nolol ka jawaabtay yeedhmada ilaahay iyo yeedhmada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo rasuulkiisuna waxay noogu yeedheen waxa nolosheenana adduunya iyo ta aakhiraba ay ku hagaagayso ee nolosha wanaagsan iyo raaxada dhabtaa lagu gaadhayo yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum qof waliba raaxada adduunya ta aakhiro iyo nolosha wanaagsan wuxuu ka helaa inta ay leeg tahay uu hoggaansanka rabbigii uu hoggaansamaa iyo inta maqalka uu maqlo iyo ajiibitaanka nebi maxamed uu ajiibaa uu leeg yahay noloshiisu waxay noqonaysaa addoonka qalbigiisa uu hagaago nolol ilaahay raalli gelisa wasaara alcabdu miman yubaahi allahu bihi malaa'ikatah addoonku darajo sare ayuu gaadhayaa marka dambe waxa uu ka mid noqonayaa addoomaha ilaahay wanaagooda iyo qiimahooda malaa'igtiisa u sheego qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu lbukhaari wa muslim min xadiidi الnucmaan alaa waina fi اljasadi mudqa ida salaxat salaxa اljasadu kuluh waida fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya اlqalb wardadow qalbiga waxaa ku jirta waslad hadday hagaagto jidhka oo dhami uu hagaagayo hadday xumaatana jidhka oo dhami uu xumaanayo inta ka hagaagtaa jidhka ka hagaagaysa inta wasladaa ka xumaata ayaa jidhka ka xumaanaysa alaa wahiya alqalb buu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wasladaasi waa qalbiga kulu ma fiika ya cabd allah min salaaxin wa khayr famin salaaxi qalbik waxa laala iyo waxa aad samaysee kaa soo fula ee khayr iyo wanaag ilaahay raalli geliye ah adiguna aad tirsatood ilaahay kaga rajayso dembi dhaaf iyo raxmad iyo abaalmarin wanaagsan waxa uu ka dhashay hagaaga qalbigaaga wa kullu maa fiika min fasaadin wa sharin famin qalbik waxa laaliya waxaad qoonsato iyo khalad waxaad isku og tahay
waxa sharkaasoo fula mid qalbi mid qowl iyo mid camal waxa uu ka dhashay shar qalbigaa ku jira fakulu inaa'in biladii fiihi yandaxu weel waliba wixii lagu shubay ee aan laga maydhin ayuu dhididaa weel kastana waxa ku jira ayaa laga soo daraa oo haddii weel kale la geliyo weelkaa kale uu soo qaadaa ayuha alcabd lmuslim ida kaana alamru kadalik haddii arrintu sidaasi tahay oo badbaadadaada iyo wanaagaagu yowma alqiyaama uu ku xidhan yahay qalbi badqaba ilahay inaad la hor tagto oo hagaaga xaalkaaga iyo noloshaada iyo xubnahaaguba uu ku xidhan yahay qalbigaagu inuu hagaago fatacaahad qalbak qalbigaaga aada uga warhay waxris calayhi akthara min xirsika calaa jasadik ku dadaal hagaaga qalbigaaga caafimaad qabkiisa quudintiisa inta aad ku dadaalayso jidhkaaga iyo danihiisa iyo wanaagyadiisa inaad u ilaaliso in ka badan tacaahad iimaanaka ya cabd allah faliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa kordhaa waana dhinmaa iimaankaaga aada uga warhay halkuu maraya ma hoos buu u dhacay ma kor buu u kacay sababtu waa maxay isweydii tacaahad khushuuca qalbik watadarucahu lirabbik si gaara uga warhay khushuucda qalbigaaga iyo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaagu siduu ugu dulloobo ee rabbi subxaana wa tacaala ugu hogaansamo tacaahad maxabataka lilah wa tacdiimaka lahu jacaylkaad ilaahay u haysaa intuu leeg yahay miisaankaysa saar weyneyntaad ilaahay weyneysaa intay gaadhsiisan tahay isqiyaas oo fuudhka isgeli weyneyntaad weyneyso ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa amarkiisa iyo nahyigiisu intay gaadhsiisan tahay intee in leeg bay macaasida iyo khaladaadka kaa dhacaa raad qalbigaaga ku yeelatay oo qalal ay u sababtay iyo madoobaad iyo inuu raadayn waayo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadkuna raad wanaagsan ay kaga tegi waayaan wallahi hada acdamu waajibin calayk waa waajibka u weyne ku saaran qalbigaaga inaad saasi uga warhayso qalbigaaga u ilaali dawadiisa wa shifaa'uhu alqur'aan kalaamu rabbi alcaalamiin ghidaa'ahu u ilaali wuxuu quudanayo waa طaacat اllahi wa dikru الraxmaan ilahay inaad adeecdood u hogaansanto ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisana aada joogtayso kama qaala rabbuna alaa bidikri اllahi taطmaئinu اlquluub aqulu qawlii hada waastagfir اllaha lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى cabd اllahi وrasulih محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباad الله haddaynu maqalay badbaadadeenu inay ku xidhantay yowma alqiyaama qalbi hagaagsan oo badqaba ilaah inaynu la hor tagno toosnaanteenna iyo addoonnimadii laynoo abuuray inaynu xaqiijinno xuquuqda ilaahay iyo takhalqigana aynu ka soo baxnaana inay ku xidhan tahay hagaagga qalbigeenna su-aashu waxay tahay ma ariiqu ilaa salaamati اlqalb wa istiqaamatihi wamaa calaamatu dalik waa maxay waddada loo maro caafimaad qabka iyo badbaadada qalbiga iyo qalbigu inuu noqdo qalbi u toosan sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doonaayo qaala ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala fii waabil sayb imaamka weyne caalimka ah arrimaha quluubtana aada uga warama isagoo ku saleeya qur-aanka iyo sunnaha ee la yidhaahdo ibnu اlqayim wuxuu yidhi istiqaamatu اlqalbi bishay-ayn qalbigu laba sababood buu ku toosnaadaa
وقلبي وددي إلهي كتوصا إنه نقضه لبدا الرموت بالصابة. أحدهما أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، وتعيلك إلهي شيء كستو تشعليها إنه كوريه، أن يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، إنه أدونك كتشعليها الله سبحانه وتعالى أبوري waxa allaale iyo wuxuu ku jeclaan lahaana ku magacaabana ku sifaysan ee sameeyey una nicmeeyey addoonka nicam aan la koobi karin oo hadduu caqli leeyahay sababu noqonayo ilaahay inuu jeclaado allaha waa inuu qalbigu cid walba ka jeclaado. وبهذا يحب العبد وبهذا أقول وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. sida uu nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, taasi ayuu addoonku ku helayaa macaanka iimaanka. iimaanka waa la dhadhamiyaa, halka laga dhadhamiyaana waa qalbiga. sida carabku uu cuntada u dhadhamiyo dhadhamada kala duwan ayuu qalbiguna wuxuu dhadhamiyaa. macaanka iimaanka wuxuu si dhaba u dareemayaa, siduu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. صدح قفك كسفوبة إيمانك معانك سأيها لا كون وحكى إلهي رسولك سعيد والبين كتعليه. قال رحمه الله isagoo sheegaya waxa calaamadu ah inuu adoonku ilaahay cid walba ka jecel yahay. فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه. وعلامته أدونك إلهي عد والبين كتشعل يهي وارنت قلبي سوينو توصنا هذا الصابيصة مركا يسكهر يمادان شعيلك إلهي واجبك يا شعيلك عدك لا خلق يا كميدا كو قد وقت هذا وقوم ظنها نقضانه إن إلهي شعيلكيسا أذكر مريصو شعيلك عدة كله ووحي إلهي وشعيلي هاي مر والبعض هر مريصو هبا خلاف عدة شعشاي وحي كادونيين أيوار كيين إلي كان مدنيين وإن الحقيقة سقولك إلهي ويري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه علامة محبتك لله أكثر من محبة كل أحد. إلهي الرسول كي سعدنا كهر مرننا تصع على مضوى إلهي الرسول كي سعيد والبينات كتشعشعي مركا يرنتو شيء شتاقنت هاي ومداد سهلا وفضض. ولهذا وحر ابن القيم وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل. أرن كاسمركو شيء إلهي بان تعالي إلهي بان عيد والبكت تعالي يا أن لقوا امتحامنا لقوا امتحام وحو إلهي تعالى يا وحي خلقه تعالى المركز يسكهر يمادان إن هذا سكشيك شيء تهاد بوسالنتي لكن أرنتو مركز فعل تماضه وإس خلافان دونست النفط هذه وحي إلهي دونيو كوة تعيشها سيدا يتعلي هنا سيدا إلهي وتعلي هاي مركز أيو أضيق إيمانيا وأي كربحيان المجاهدون في الله كوة نفتو ذا إلهي درادي ولتش هذي والمضيعون لحق الله يكوى إلهي سبحانه وتعالى حق صديعي. هذا هو الأمر الأول. أرنك اللباط قلبي قوم إنه توصنا هذا الصوابة وتعظيم الأمر والنهي وإن دوينيس أمرك إلهي ينهي قديد مدى يريبتانك إلهي وحي إلهي كو أمري آد وكولا وين هذا وحوال بنا وكالا وين هذا نفت هذا وكالا وين هذا وإهل كاقي مال كاقا وكالا وين هذا وحكستو نفت هذا ويتعش هاي وكالا وين هذا ودهو ذا نفت هذا وخلافته فلنت أمرك إلهي صادقا من نغتكو إلهي ويري والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إلهي الريبتان كيسا وكل وحا الصمين إنه نغضم إذا آدوا وينينيسو
oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu diiday aada dareensan tahay inaanu dantaada ahayn adduun iyo aakhiraba, oo xataa hadday naftaadu jeceshahay aada uga tegayso tacdiiman lilahi wa maxabatan lahu, jacayl ilahay aada jeceshahay iyo weyneyn ilaahay subxana wa tacaala aada weyneyneyso. ilaahay wuxuu ku amray inuu kula weynaadaa oo aada ku dhaqaaqdo oad ku sabirto nafta aada kula jihaada. wuxuu ilaahay kuu diiday inuu kula weynaadaa waxay ka dhalanaysaa weynida allaha ku amray ee wax kuu diiday aada weyneyneyso. qaala wahuwa naashiun can tacdiimi alaamiri wannaahi. amarka ilaahay wuxuu kula leekaanayaa intuu ilaahay kula leegyahay. weyneyntaad ilaahay weyneyneysaa inta leeg tahay ayay leekaanaysaa weyneynta amarada ilahay aad weyneysaa. wuxuu ilaahay kuu diiday inuu kula weynaadaa xumaantiisa iyo dhibaatadiisa iyo foolxumadiisu ay kuu muuqataa, waxay marba leekaanaysaa weyneyntaad ilaahay qalbiga ugu hayso. walihada buu uhi cabdullaahi bnu mascuud idaa samicta allaha yaquul ya ayuha aladiina aamanuu, haddaad maqasho ilaahay oo le ya ayuha aladiina aamanuu oo muuminiinta u yeedhaaya, faarcihuu samcaka fainamaa bacdahu khayru ya'muru bihi aw sharu yanha canhu. dhegta aada ugu raarici qalbigana u fur dhawaaqa rabbi subxaana wa tacaala, waayo waxa ka dambeeya ama wax ilaahay ku amrayo dan ku ah, ama waa wax ilaahay uu kuu diidaayo oo dan aan ku ahayn. ayuha almuslimuuna cibaad allah, xaqiquu maxabatakum lilah litastaqiima quluubukum, wacadimuu awaamir allahi wa nawaahiih alwaaridati fi lkitaabi waاsunna, tanaaluu raxmat allahi wa makfiratahu wاdarajaat اlculya fi اdunya wاlaakhira. allahuma صli calى nabiyina muxamed wعalى ali nabiyina muxamed kama صlayta calى ibrahima wعalى ali ibrahim, wbarik calى muxamedi wعalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahima wعalى ali ibrahim fi اlcaalamiina inaka xamiid majid.